الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ilaahay subxaanahu wa tacaala bishii barakaysneed ee khayrka iyo wanaagga nagu soo gaartay wuxuuna amray bisha inaan aad uga faa'iidaysano. tilmaamaha uu ka bixiyena waxaa ka mid ahaa shahru ramadaan alladii unsila fiihi alqur'aan, bisha ramadaan inay tahay midda qur'aanka lagu soo dejiyey. qur'aanka waa naqaanaa qiimaha dhexdeenna uu ka leeyahay, muslimiinta heerka uu dhexdooda ka taagan yahay. kitaabka qur'aanka waa mucjisada ugu sarraysa ee nebi moxamed la siiyey sala allahu calayhi wasalam. jinni iyo insi hadday isu tagaan lama imaan karaan asagoo kale, walow qaarkood qaarka kale ha kaalmeeya haddii la doonee. in badan baa la tusaaleeyey inay qur'aankan aaminaan. bushi fara badan bay isku dayeen inay uga hortagaan, laakiin waa u suurageli weysay. doodoodii xujadooda daaxdi bayd mid burtay oo baatil markaa ku taagan. wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina fa'tuu bisuuratin min milihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaah in kuntum saadiqiin baa lagu yidhi. haddaad tihiin kuwa shaki uga jira, rayb kaga sugan, wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina, waxaan addoonkeenna moxamed dushiisa ku soo dejinay, fa'tuu bisuura, hal suurad la imaada. almashrax oo kale keena, in actaynaa oo kale keena, fa'tuu bisuuratin min milihi wadcuu shuhadaa'akum, shuhadadiina u yeerta. waxaad gaalmo ka dhigan kartaan u wacda in kuntum saadiqiin, haddaad tihiin kuwa run sheegaya. fain lam tafcaluu, hoy haddaadan falin oo aad samaynin, walan tafcaluu, wala sii cajis geliyey, maba samayn kartaane. ma qur'aankan oo kale aad keeni kartaan? subxaana allaahi, waa maya. ma qur'aankan oo kale keeni karaan? ilaahay baa hufanay subxaana wa tacaala. fain lam tafcaluu walan tafcaluu fattaquu nnaara alatii waquuduha annaasu waalxijaara uciddat lilkaafiriin. warhoy naarka baqa, warhoy naarka cabsadee qur'aanka aamina, warhoy naarka cabsadee qur'aanka aqriya, warhoy naarka cabsadee qur'aanka ku camalfala, warhoy naar ka cabsadee qur'aanka waxaad ka dhigataan dhaqan iyo waxaad ku camalfashaan saad ilaahay agtiisa u badbaadaan, cadaabkana aad ka kortaan. haddii aad yeeli weysaan, ogaada naarta inay tahay mid kaafiriin loo diyaariyey. uciddat lilkaafiriin, gaalaa loo diyaariyey. laakiin inta aaminta qur'aanka, ku dhaqantee ku camalfasha, akhriseed ku dadaburta, ummadda gaarsiisee barta, macaanidiisa iyo waxa uu tilmaamaya ku dhaqanta, waxa uu reebaya ka hartaa. wabashir aladiina aamanuu wacamilu saalixaat, bishaara sii, u bishaareey inta rumaysay camalka saalixa la timid inay janno leeyihiin, hoostooday webiyaalo soconayaan. waa laga arsuqayaa jannada xaggeeda, mar kastoo himaarteeda wax laga siiyo waxay leeyihiin haada aladii rusiqnaa min qabl wautuu bihi mutashaabiha. intaa maxaa u sii dheer, walahum fiiha aswaaj, xaasas bay leeyihiin. ahlu jannaa xurlcayn buu alla ugu talagalay subxaana wa tacaala. kitaabkay ku dhaqmeen, kitaabkay aamineen, kitaabkii alla subxaana wa tacaala uu siiyey, mar allaala markay ku dhaqmeenay ku tadabbureen, janno la geliyey. lagama qaafil noqon in aswaaj loo sameeyo, xaasas inuu alla u sameeyey subxaana wa tacaala. wazawajnaahum bixuurin ciin, cadcad indho waaweyn yaan u guurinaynaa buu dhahayla subxaana wa tacaala. gabdhaha la sii waa mutahar, waa taahir, waa nadiif, waayo waa dumar ilaahay uu ka dhiga kuwa mutaahiraad ah oo markaa taahiran. candhuuf malab uu dhahay dumarka ahlu jannaha iyo raggoodaba, ma candhuuf tufaan, ma xaakoodaan,
ma saxaroodaan ma kaadiyaan cuntada ay cunaanna rishxi oo kale uga soo baxaa waa sida dhididka oo kale miski oo kaluuna u soo carfayaa subxaanaka yaa raxiim meesha waa waxyaaba ilaahay u diyaariyay subxaanahu wa tacaala bishii la soo dejiyey qur'aanka qofkii ku dhaqma qur'aankii haddii lagu dhaqmo wanaagga lagu gaarayay yaan maanta ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyaanu ka maraynaa gebagaba ayaan sii maraynaa maalmaha macduudaadka ah asagoo ayaaman macduudaad ahaa haddana uu sii macduudoobaayey waa in qofka muslimkaa khayraad uu kala haraa waa inuu xasanaad ka reebtaa waa inuu khayrka iyo wanaagga badiyaa waayo in yar oo farakutiris ah ayaa soonkii markaa nooga haray walaalayaal shalay beed mar allaala markii laan dhehaynay soo dhowow ramadaano waatana oo wadaacan ramadaan aanu leenahay oo ramadaankii la sii sagootinaayo oo ramadaankii gebagabo uu maraayo oo ramadaankii aan ka harin wax aad u yar maahane marka ilaah subxaanahu wa tacaala qur'aankii la soo dejiyey bisha iyo qur'aankii la soo dejiyey qofkii ku dhaqmaa yuu xaaladda ugu bishaareeyey aan ku dhaqanna ramadaankana xoog aanu aqrino aan ku dhaqanno ramadaankana aan aad iyo aad ugu sii laba jibaarna akhrintiisa aan ku tadabburno ramadaankana aan ka sii laba jibaarna tadabburkiisa aan dadka gaarsiino ku dhaqmtaqaanaa barno ramadaankana aad aan ugu sii dadaalno xaaladda noocaas ah yaa lagu gaaraa bishaarada ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala dumar iyo aswaaj bay leeyihin mutahara'a aad iyo aad u nadiif oo adnaas ka dahiran xayd kuma dhaco nifaas kuma dhaco injir ma lahan wasaq ma lahan waa dumar buu ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala waa aswaajun mutahara meeshaasayna ku dhex waarayaan ahlu jannaha haddaba ramadaankii maanta waad u jeedaan oo waxaanu maraynaa wakhtigii gebagabadiisa markaa ahaa waxaanu maraynaa wakhtigii gebagabadiisa uu u sii dhowaa waxaanu maraynaa uu u sii batay dhankii dhammaadka 24 ayaanu maanta joognaa waa in marka ayaamaha yar ee ka dhiman aan ogaanaa waa inay cibro noo noqotaa oo sida uu ramadaan u sii jarmay oo dhanka dhammaadka uu ugu sii dhow yahay yuu cimriga insaankuna saa u jarmaa markaasaa la rabaa qofku cimrigiisa inuu ka faa'iidaysto maalin cayaryaysan kugu dhaafin maalin xasanaad adoona kasban ha seexan maalin walba waagu baryo wuxuu leeyahay insaanow ama bini aadamo maalin jadiid ah ayaana iga faa'iidayso maanta haddii aan kaa dhammaada dib dambe isku arki mayno ilaa qiyaamaha maalinteeda maahane maalin kastoo cusub oo timaada hadday dhammaato dib uma soo noqoto gadaal ii soo celi ma jirto qofku wax allaala wixii maalintaa uu kasbaday yaa loo kaydiyaa duqri bay u noqotaa taasaa lalaga xisaabtamayaa rabbi naxariis badan ayaana xisaabaya maqfirii dembi dhaaf u saaxiib ah dadku waxay kasbadeen hadduu ku qaban lahaa la cajala lahum alcadaab cadaabkaa lagu soo dedejin lahaa bal lahum mawcidu la yajiduu min duunihi maw'ila mawcid baa loo sameeyey sukadiisana meel loo iisho oo la galo oo looga baxsado allah ma jiro subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey qof walbow gadaal fiiri bacdamaa ramadaanku gebagabo uu maraayo ka soo bilo maalintii kow aan soonnay iyo maalintii ku xigtay qalinka iyo buugga qaado naftaada xisaab maxay kasbatay naftaada fiiri maxay xumaysay naftaada fiiri maxay gabadfal ku samaysay naftaada fiiri xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu intaan laydin xisaabin ka hor isxisaabaa la yidhi intaan miisaanka aakhire la gaarin oon camaladiina la miisaamin hadda miisaanka saarta qofku mar allaala markuu dhoofayo ee uu rabo inuu riboorta ka baxo wuxuu fiiriyaa culaysyada uu wado waa miisaamaya intuusan tegin miisaankii lagu miisaami lahaa alaabtiisa wuxuu rabaa inuu sii ogaado kiilaadka uu wato wuxuu rabaa inuu sii ogaado waxyaabaha dheeriga ku ah wuxuu rabaa inuu sii ogaado waxyaabaha ka nusqaansan wuxuu rabaa gudaha waxa ku jira ma kontrabaan lagu qabsanaya mase waa arrin kale oo mubaax ahoo lagu socodsiin karo taasuu kala fiiriyaa qofku waa inuu ismiisaamaa intaan miisaanka weyn la gaarin ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وحن إجينا أن كينينا مالنت قيامه ميزانك أمد لصار لها قفك عملك أوسم مستي وإن كان مثقال حبة هديت حب عليس كذا أو خردل وكينينا وانا كلا حساب تمينا الله سبحانه وتعالى
marka qofku waa inuu issii fiiriyaa qofku waa inuu issii ogaadaa wuxuu hormarsaday yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaah war dadka alla ka cabsaday rabbi rumeeyo ilaahayna ka cabsada yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaah waltandur nafsun maa qadamat liqadin naf kastana ha fiiriso hana egto waxay beri u hormarsatay wattaqullaah mar labaad aayadda lagu soo celiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaah wattaqullah baa la sii yidhi baahi baa loo qabaa taqwada ilaahay waa waxa la doondoono waa waxa la rabo in qofku ku dhex sugnaado waa waxa la rabo qofki inuu ku dhex jiro waa waxa loo baahay qofki inuusan dhinacna uga leexanin waayo waa wasiyadii awwaliin iyo aakhiriin waa idinka iyo dadkii idinka horreeyeyba waxaan idin dardaarnay buu dhahay ilaahay an ittaqullaah inaad ilaahay ka cabsataan cabsi ilaahay waa muhiim walaalayaal cabsi ilaahay waa lagama maarmaan cabsi ilaahay waxa lagu badbaadiyey lagu liibaana adduun iyo aakhiro waa ayada cabsi ilaahay waa waxa jannada firdowsa lagu dhaxlee lagu galo cabsi ilaahay waa waxa siraadka iyo dhibaatadiisa iyo jahannamada hoosta taala inaad ku dhacdo waxa looga badbaado cabsi ilaahay waa waxa qofka markuu ciriiri la kulmo ilaahay maqrishka uga bixiyo subxaanahu wa tacaala cabsi ilaahay waa shayga qofka loogu arsuqo biqayri xisaab iyo min xayth laa yaxtasib uusan malaynaynin cabsi ilaahay waa waxa cilmiga ilaahay lagu barto subxaanahu wa tacaala cabsi ilaahay waa shaygana lagu kala farqiyo annaga iyo cadowyaalkeena cabsida ilaahay waa waxyaabaha ilaahay ama arrinta rabbi kuugu jeclaada subxaanahu wa tacaala والله يحب المتقين إلهي متقين توجعلي سبحانه وتعالى أيضا حالته أي صداتها يا رمضان لغو سيجرا صونكي وهدنا محصولك إي أجدد إي سببتنا لغو واجب يالي إي سببها أن أسومين أي تهي إن الله كعبسه الماء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عبسدي تاسي نقطي رمضان كي بيسوهوس قشي صونكي أيتمد وحله هلا الله كعبس النقضي يا أيها الذين آمنوا ذاتك ألا رميي إيمان بالوقري إيمان بالوغو ناذيي هذا الإيمان كان لوغو مقعدري حدنا إن تقوضوا أي مهم سيطاهي أيالا يري الصومة sida dadkii idinka horeeyay oo kale ay u soomi jireen la'allakum tattaquuna wad cabsanaysaane dad cabsadaad noqonaysaan soonku waxyaabo fara badan oo cabsi ah oo rabbi looga dhowrsado xumaanta uu diiday looguna sameeyay wanaagyaalka ummadda uu amray yaa soonka laga dhex helaa soonka waxbaa lagu diiday qofka asagoo saa'ib ah ee iimaanka leh qofka iimaanka leh asagoo sooman kuma dhaco xataa hadduu keligii yahay waxyaaba rabbi mamnuuc inuu gacanta u haadiyo inuu soo qabsado inuu afka gashto inuu cuno inuu sameeyo inuu qaato sababtu waxay tahay soonka xakameeya soonka ayaa bamtaqaana ilaaliya soonka ayaa wuxuu u noqdaa wax uu kaga dhowrsado waxa rabbi diiday oo dhan subxaanahu wa tacaala idan cabsida la bartaa soonka waxa loo baahan yahay marka soonku waa tegayaa mar allaala markuu dhammaado oo bilihii kala la galo oo aan soonka markaa ahayn alla ka cabsigii xilmigii dulqaadkii sabarkii adkaysigii bishii ramadaan aan baranay inaan ku sii dhaqanno in ramadaanka dambe inta laga gaaray hadduu rabbi idmo in xaaladda lagu sii socdo oo cabsidii soonka la bartay la siif laba jibaaro aad ku sii socoto aad ku sii moodo waayo tadriib iyo waa tababar soonku waa lagu tababartaa xilmiga iyo dulqaadka lagu bartaayo rasuulku wuxuu yidhi haddii qofku caayo adoo sooman ama uu ku aflagaadeeyo ama uu kula dagaalamo xilmi la soo bax dulqaad muuji qofkii u tilmaan inaadan ku jahli falayn nin akhlaaq leh edeb leh soonka edebtiisii ka bartoo ka qaatay inaad tahay falyaqul innii saa'im ani saa'imaan ahay dhe marka meesha maxaad ka baratay inaad dulqaadan karto waxaad ka baratay haddii lagu gardaraysto haddii lagugu xadgudbo haddii lagu caayo intaasoo dhanba inaad dulqaadan karto oo aad sabri karto ood adkaysan karto soonka idan laga bartaa oo rasuulkeena yidhi ha ku jahli falina oo ha ka arsanina oo ha ka argudanina oo ha caytamina oo ha dagaalamine waxaad dhahdaa haddii lagugu xadgudbo xataa innii saa'im walal ani saa'imaan ahay waa soomanahay idaah afkeyga alla u xirayay idhaaf haddii soonku dhammaadana ma dagaalaad bilaabaysaa waa maya ma caybaad bilaabaysaa maya argudash maad ku soconaysaa maya
aawa wixii aad baratay ramadaanka intii lagu jiray aawa wixii aad samayn jirtay ramadaanka intii lagu jiray aawa xumaantaad ka tagtay inta ramadaanka lagu jiray aawa wixii xumaay aad daawan jirto aad ka tagtay xilliga ramadaanka markii la gaaray dib ma ugu noqonayna gadaal ma u noqonayna waa maya ramadaanku idan hadduu dhammaado aan ogaano inaan tababar cajiib badan qaadanay inaan dhinac kasta ka tababaranay in alla ka cabsi waxa la raadinaya uu yahay waxa lagu liibaanay inay jannada lagu galana alla ka cabsi uu yahay wasiiqa alladhiina taqaw rabbahum ila aljannati zumara waa la kaxeeyaa waa la wadaa ayagoo wafdi oo kale ah la maamusayo la sharfayo inta cabsatay wasiiqa alladhiina taqaw yay ka baqeen rabbigood xaggee loo wadaa ila aljanna zumaran waa kooxo وجماعات ويفربذيهن زمرا حتى إذا جاءوها إلا الباب أي جردوا أي تغان محاسوك حي وجدك سومرسيي وإيمانك ذي عبسيدي وتقوذي أي كد ذالين قفك أن تقنقن وإلهي الدين تيسا أن قرق من ومعاسد أن كتغين أي إلهي أمر كيسي كقالوبي فيري أسغنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا dhankii dadka muttaqiinta ahaa dhanka rabbi loo kaxeeyey naxariis badnaha agtiisa loo waday ayuu jahannama loo kaxaynayaa walciyaadu billah meeshaasaa loo sii socodsiinayaa wasiiqa aladiina kafaruu kuwa kufriya waa la qumina waa la kaxayna waa la jiidayaa si dandaran ayaa loo wadayaa ilaa jahannama zumaran xataa idaa jaa'uuhaa markii ay tageen ayaa albaabada loo furfurayaa كد هياشي ملايكتا الله هدليسا ورهويا محاجدك إذي سوى مرسيي ماشي المتقانين ديرتان التميذين متقانا سيئيتين ولا سعوتين محا إذي كوكاليفي إنا سوى مرتان إنا ماشاتي ماذا ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم ميسا إذين إما الرسول آياتك الله إذين قدوا الأخرصة وينذرونكم لقاء يومكم هذا ما لنتن لكل كيدا إن أنت تماذان إذين كجدقا مويسين قالوا بلى إنكراد مجرته قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ويقرنيان وايه البابها جهنم سوقلا لليهي ولو سو دوينيا سدن درن لو سو دوينيا ايدا قاركود waxay tilmaamay inta gadal inta looga yimaado lagu riixayo xogna loo tuurayo yawma yud'una ila naari jahannam da'an oo hadhihi naar loo leeyahay tan waa naartad beenin jirteen salaadad ka tagteen qeyrka alla diideen soonkii ma soomin ama waad soonteen waad ku dhex macaasi fasheen amarkii Allah khilaafteen rasuulka wuxuu idin jeexay wadadu idin baneeyay wuxuu qaaday idin yirina waad diideen oo waad dhinac marteen hadhihi naar waa tad beenin jirteen gala marka hore waxaa loo leeyahay afa sihrun hada am antum la tubsirun ma sihr ba ma sabab u jeedaanba islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum inma tujzawna ma kuntum ta'malun gala naarta ku sabra oo aamusa ku sabra oo adkaysta ku sabra oo wax badan aamusnaada ama ha ku sabrina qayliya oo cawaado argagaxa wax lidin taraya majiro sawa'un alaykum isku mid bay idin tahay waayo wax leedinku abaal marinayo wixii marka aad kasbateen ama kuwii kale muttaqiinta ahaa markii meesha ay yimaadaan malaa'ikta markii salaam bay u tuurayaan wala salaamaya wala soo dhaweynayaa markay meesha yimaadaan malaa'iktii keetayalku waxay leeyihiin salaamun calaykum nabadgelyo dushiina ha ahaato wayba ahaatay dibtum fadkhuluha khalidin waad dib noqoteen waad soomteen waad salaadeen waad tarawixdeen وقيامتين وصدقيستين وضرون شاكتين وضعبستين قير بد داشين إلهي سبحانه وتعالى وحد أطبتين أردن طيبوا أها ربي لطيبوا أقبلا وحفي عن أطبتين بالذين كأقبلي ربي سبحانه وتعالى فضلقي سالذين كوا فجي وضد الخير كات صومرتين الباب كي جنضت كنت ماضين فدخلوها خالدين قال وضواريسان قال ماشي وضواريسان معيليهن الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ربي وحوي سبحانه وتعالى إسلامركي البابها جنض أي قران مهد اللي إلينيان ربي أمهدينيان إلهي بمهد أجيدينيان وقالوا الحمد لله إلهي بمهد أسقناتي
أمان الله مضن إلهي سبحانه وتعالى نور نبيي نور شاقي نور رميي بلنقاتك ونور بلنقاضي ويا إلهي لا يخلف الميعاد ميعاد كمقوبياله بلنت مفروه بلنتك مبحه خيرك إيواناكي طاعة الله قف الله لقف كسمايا وحو أبلنقاذ بوسيا دادك أبرارتا إبارياشا خيرك إيواناك بضن هذا لذا الله إيكب مركي بريايان أيضاً وحكمت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربي ونصيه واحد نوب بلنقاضي ربي ونصيه بلنقاضك أدنوف فضيسي ربي ونصيه واحد نوية بهضي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك على لسان رسولك رسول هذا عرب قد واحد نوقف بلنقاضي إلهي ونصيه على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ما نبت قيامة هنهوجين هنمرجين هندلين واي وحيابها إلهي إكبر يا وحكمت ما لنت آخر عيبه ذا إن الله أستره ما لنت آخر إنه سن إلهي فضيحين ما لنت آخر إن جنة إلهي أي قرا ما لنت آخر خيرك وناقة إلا سيو ربي ونسي وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إذا ولا لي الأندذالنا ما لامها قدام بي وحير كهري رمضان كان أن نقونا دد إلهي أسر رجوعا أصيب بضيا عباداتك إيقا جيرين لبا جبارو سدح جبارة أفر جبارو شن جبارة هذا يكري كرانة من جبارة سيان إلهي أكتيس خير إيواناكو قارنو الله حقها النوافجيو صون كان الله نقا أقبل تعدي دينتنا الله نرسل وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى أعلم